aqoonsiga maamulka gumeystaha Israa'iil ee Somaliland ayaa tan iyo jamcihii la soo dhaafay adduunka ka dhaliyay hadalhayn badan. Maamulka gumeystaha ayaa go'aankaas ku soo bandhigay video call ama wicitaan muuqaal ah oo uu ra'iisul wasaarihiisa la yeeshay madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro. Taas waxay ka dhalatay kadib dib u dhigyo iyo labalabayn socotay sanado badan. sidaas darteed Israa'iil waxay noqotay xubintii ugu horeysay qaramada midoobay ee aqoonsata gooni isu taagga gobolka Soomaaliyeed. Talaabadan waxay xambaarsan tahay cawaaqib aad u waaweyn oo saameynaya Yemen, Filistiin, amniga badda cas iyo dhammaan dalalka ku teedsan. Sidee iyo sababtee ayay u saameynaysaa? Maxay yihiin arkaanta ictiraafkan? Maxaa saxiga? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan ku lafaguraynaa tabinteennan Tafaftir Media ee soo dhawaada. 26 December 2025 Israa'iil ayaa aqoonsatay maamulka gobolada waqooyi galbeed Soomaaliya ee Somaliland. Su'aalo badan oo sharaxaad dhab ah u baahan ayaana ku gadaaman ictiraafkaas. Si aan jawaabahaas u helno waxaan marka hore u baahannahay inaan fahamno waxa ay tahay Somaliland. inkasta oo aan horay marar badan uga hadalnay haddana waa gobol si rasmi ah uga tirsan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. hase yeeshee sanadkii 1991 ayuu si iskiisa ugu dhawaaqay gooni isu taag. mana jirin xubin qaramada midoobay ah oo aqoonsatay ka hor go'aanka Israa'iil. baaxadda gobolkan waxay gaaraysaa qiyaastii 176,000 oo kiiloomitir. tirada dadka ku nool waxa lagu qiyaasaa 6 milyan. waa sabool, balse waxa ugu muhiimsan ee ay leeyihiin ayaa ah xeeb dhererkeedu yahay qiyaastii 740 kiiloomitir oo ku teedsan gacanka cadmeed. hantida ugu muhiimsan ee taalla xeebtaasi dheerna waa dekadda Berbera, taas oo Imaaraadku maalgeliyay isla markaana maamulkeeda qayb ka ahaa sanadihii u dambeeyay. su'aalo badan ayaa ka dhalanaya arrintan. maxay Somaliland u doonaysaa gooni isu taag? maxaa loo aqoonsan waayay muddo dheer? maxay Israa'iil hadda kadib sanado labalabayn ah u go'aansatay inay qaadato mowqifkaas? marka la eego su'aasha koobaad, sababta Somaliland u doonayso madax bannaani, mas'uuliyiinteedu waxa ay ku doodaan inay Soomaaliya tahay dal qalalaase joogto ah ka jiraan, dhibaatooyinkiisuna aysan dhammaad lahayn, iyo inay tacaddi kala kulmeen taliskii kacaankii 21 sano dalka ka arriminayay. waxay ku andacoodaan in midnimadii Soomaaliya aysan waxba ka faa'iidin marka laga reebo faqri iyo darxumo, iyagoo waliba soo bandhigaya daliilo taariikheed iyo doodo dunidu ka diiday. kadib burburkii dawladdii Soomaaliyeed oo meesha ka baxday 26 bishii Janaayo 1991 ayay 18 bishii Maajo ama May 1991 waxay ku dhawaaqeen inay yihiin dal madax bannaan. dadka iyo mas'uuliyiinta Somaliland waxay ku doodaan in go'aankoodu uusan ahayn mid cusub ama caadifad ku dhisan, iyagoo tusaale u soo qaata midowgii iyo kala go'ii dalalka Senegal iyo Gambia intii u dhaxaysay 1982 ilaa 1989 kaas oo si nabada ku dhamaaday. si kastaba ha ahaatee, Soomaaliya si buuxda ayay u diidaysaa doodan, waxayna ku adkaysanaysaa in Somaliland tahay gobol ka mid ah Soomaaliya. mowqifka dawladda Soomaaliya wuxuu ku salaysan yahay mabda'a ixtiraamka xuduudihii gumaysiga ka tagay oo tiir muhiim u ah nidaamka Afrika. ku xadgudubka mabda'ani halis ma gelinayo Soomaaliya oo kaliya, balse wuxuu khatar ku yahay qaaradda oo dhan, maadaama ay jiraan tobannaan gobol iyo kooxo doonaya gooni isu taag haddii albaabkaas la furo. Soomaaliya waxa kale oo ay ku doodaysaa in xaqa madax bannaanida uusan noqon karin mid gobol kaliya si gooni ah u qaato, balse uu yahay mid ay wadaagaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed kuna yimaado ogolaansho guud. waxay intaas ku dartay inay jiraan xalal siyaasadeed oo lagu xallin karo cabashooyinka Somaliland, gaar ahaan xoojinta nidaamka federaalka, wadaagga awoodda iyo khayraadka, halkii laga qaadi lahaa waddo ay Soomaaliya khatar ku galayso. qayb ka mid ah walaaca Soomaaliya waa in aqoonsiga Somaliland uu horseedi karo kala daadashada guud ee Soomaaliya, maadaama dalku yahay federaal oo ay jiraan gobollo kale sida Puntland iyo Jubbaland oo leh ama yeelan kara damac gooni isu taag. ilaa iyo hadda beesha caalamku waxay taageersan tahay mowqifka Soomaaliya ka hor aqoonsigii Israa'iil 26 December. ma jirin xubin qaramada midoobay ah oo ictiraaftay Somaliland, inkasta oo dalal badan ay la shaqeeyaan sida Britain, Ethiopia, Turkiga, Imaaraadka iyo Taiwan oo laftigeeda gacan ku rimis Mareykan iyo galbeed ah. mowqifka Mareykanka iyo beesha caalamka ee Somaliland wuxuu ku salaysan yahay laba arrimood oo waaweyn. midda koobaad waa cabsida ah in aqoonsigu dhiiri gelin doono dhaqdhaqaaqyo kale oo gooni isu taag ah oo Afrika ka jiraya, sida Biafra ee Nigeria iyo dalabka Polisario ee Saharaha galbeed oo ay Morocco diidan tahay. Ethiopia inkastoo ay ka mid tahay dalalka taageera Somaliland, haddana iyadu way ka labalabaynaysaa aqoonsigan, maadaama ay ka baqayso in arrintu kiciso gooni isu taagyo gudaheeda ah. tan iyo markii la aasaasay ururka midowga Afrika 1963 waxaa jiray laba isbedel xuduudeed oo kaliya,
kuwaas oo uu caalamku aqoonsaday waana gooni isutaagii Eritrea 1993 iyo madax bannaanidii Suudaanta Koonfureed 2011 labaduba kadib dagaalo dhig badan ku daatay ayay dhasheen. arrin labaad oo caalamku ka baqayo waa xaaladda dhaqaale ee Somaliland. bangiga adduunka wuxuu sheegay in dakhliga soo gala qofka ku nool Somaliland sanadkii uu yahay $350 celcelis ahaan, taas oo ka dhigan in ay noqon lahayd mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan adduunka. si kastaba ha ahaatee ee Somaliland waxay sii waday dadaaladeeda ay ku raadinayso aqoonsi iyadoo xoogga saartay Mareykanka iyo xulafadiisa gaar ahaan Israa'iil. mas'uuliyiinta Somaliland waxay muujiyeen rabitaan ay ugu biirayaan cahdiga Ibraahimiyada oo loo yaqaano Abraham Accords, waxayna isu soo bandhigeen inay yihiin xulafo yar balse wax ku ool ah oo Mareykanka iyo reer galbeedka iyo Israa'iilba wax tari kara. waxay sidoo kale isku muujiyeen inay yihiin maamul dimuqraadi ah oo xasiloon kana soo horjeeda kooxaha hubeysan isla markaana u diyaarsan inay kala saftaan reer galbeedka badda cas iyo badweynta Hindiya. suurtagalnimada Somaliland waxaa sii xoojiyay soo laabashada Donald Trump ee aqalka cad maadaama Trump uusan si weyn u ixtiraamin xeerarka caalamiga ah. isagu waa madaxweynihii ugu horeeyay ee aqoonsada Qudus inay tahay caasimadda maamulka gumaystaha iyo sidoo kale aqoonsiga Golan. si kastaba ha ahaatee Mareykanku wali ma aqoonsan Somaliland sababtoo ah waxa uu ku dhagan yahay mabda'a xuduudaha gumaysiga isaga oo ka baqaya fawda goboleed iyo khatar amni. kala daadashada Soomaaliya waxay khatar ku tahay amniga maraakiibta waxayna Mareykanka hore ula kulmeen cawaaqib xun 1990 oo ay ku jiraan burcadbadeednimo iyo faragelintii military ee ka fashilantay. laakiin Mareykanku wali wuu ku lug leeyahay arrimaha Soomaaliya. sabab kale waa diidmada xulafo muhiim ah sida Masar, Turkiga, Sacuudi Carabiya, Midowga Yurub iyo Midowga Afrika. Israa'iil lafteedu hore ayay uga labalabeynaysay iyada oo ka baqaysay in aqoonsigu weeqo doodeeda ka dhanka ah ictiraafka Filistiin. Israa'iil waxay ku doodaysay in aqoonsiga hal dhinac ah uu khatar yahay isla doodaas ayayna hadda jabisay. tani waxay Israa'iil gelisay xaalad iskhilaafsan maadaama ay aqbashay gooni isu taag hal dhinac ah oo Somaliland balse ay diiday kan Falastiiniyiinta. aqoonsiga aan taageerada Mareykanka haysan wuxuu Israa'iil ku keenay carab ballaaran oo ka timid dunida Carabta, Islaamka, Afrika iyo quwado kale. su'aasha ugu weyn ayaa maxaa ku qasbay Israa'iil inay hadda tallaabadaas qaado? warbixino badan ayaa sheegaya in ujeedooyinka Israa'iil ay si dhow ula xiriiraan dagaalka Gaza gaar ahaan qorshayaal la xiriira dib u dejinta Falastiiniyiinta. waxaa la sheegay in Somaliland loo soo bandhigay inay qaabisho ilaa 1 milyan oo Falastiiniyiin ah taasi beddelkeedana la siiyo aqoonsi ama inay iyadu ku biirto cahdiga Israa'iil aqoonsiga ku raadiso ee Ibraahimiyada. warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in wadahadallo qarsoodi ah ay jireen oo ay ku jireen iskaashi istaraatiiji ah oo sal ballaaran. arrin kale waa iska horimaadka Israa'iil iyo Xuutiyiinta Yemen taas oo kordhisay qiimaha istaraatiijiga ah ee Somaliland. Somaliland waxay qiyaastii 300 ilaa 500 kiiloomitir u jirtaa xeebaha Yemen taas oo siinaysa macno military iyo sirdoon. warbixin ka soo baxday macadka daraasaadka amniga Israa'iil ayaa sheegtay in Somaliland ay noqon karto saldhig horumar leh oo lagula socdo Xuutiyiinta. warbixintu waxay barbar dhigtay doorka Somaliland kan cilaaqaadka Israa'iil ay la leedahay Azerbaijan oo ay u adeegsato dagaalka ka dhanka ah Iran. sida Azerbaijan uga caawisay Israa'iil la tacaalida Iran, Somaliland waxay kaalin la mid ah ka qaadan kartaa la dagaalanka Xuutiyiinta ayay warbixintu ku talisay. muhiimadda Somaliland kuma koobna juqraafi ahaan balse sidoo kale waxay ku jirtaa diyaar u ahaanshaha hoggaankeeda iskaashi ballaaran oo ay la yeelato reer galbeedka. dalal kale sida Eritrea iyo Djibouti waxay leeyihiin xadidaadyo siyaasadeed oo ka hor istaagaya qaadashada doorkan. warbixintu waxay sidoo kale ku soo gunaanaday in Somaliland leedahay isku darka goob istaraatiiji ah iyo rabitaan iskaashi gaar ahaan mid ka dhana Xuutiyiinta iyo sidoo kale diyaar u ahaanshaha qaabilaadda Falastiiniyiinta. ujeedada saddexaad ayaa ah arrin dhaqaale gaar ahaan dekadda Berbera inkasta oo ay aad u xadidan tahay. si kastaba ha ahaatee sababahan kaliya kuma filna in lagu sharaxo waqtiga go'aanka Israa'iil maadaama muhiimadda Somaliland ay hore u jirtay. Xuutiyiinta ma aha khatar cusub, Israa'iilna hore ayay u lahayd joogitaan sir ah oo gobolka ah. fasiraadda dhammaystiran waxay ku jirtaa isbeddelka ku yimid Israa'iil lafteeda. Israa'iiltii hore ee ku marmarsiyoon jirtay dhowridda iyo ku dhaqanka sharciyada caalamiga ah iyo sumcad dimuqraadi ah hadda ma jirto. Israa'iil tamaanta waa mid aad u gardarro badan, khatar qaadasho badan, uuna ku yar yahay ixtiraamka xeerarka iyo xuduudaha casaanka ah. tusaale ahaan duqeyntii ay sanadkan ku qaaday magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar waxay ahayd go'aan aan hore loo malayn karin. xitaa Israa'iil ayaa qiratay inuu ahaa khalad saameyn taban ku yeeshay xiriirkeeda gacanka.
sidoo kale Israa'iil hore waxay u diidi jirtay eedeymaha ku saabsan barakicinta Falastiiniyiinta ee 1948kii maanta se mas'uuliyiinta si mutaxan ayay u qirtaan waxay hadda sheegayaan in Falastiiniyiintii la barakiciyay mar kale la barakicin doono waxay ku adkaysanayaan in aqoonsiga Falastiin ee hal dhinac ah uu keeni doono fawdo laakiin hadda aqoonsigeeda Somaliland kaliya ma jabin dooddoodii ee sidoo kale waxa uu soo saaray munaafiqnimadooda arrintan waxay keentay cambaareen ballaaran oo caalami ah su'aalo badan ayaana haatan dul hoganaya ixtiraafkan waxaana kamid ah sidee ayuu u hirgeli doonaa sidee dalalka diidan u wajihi doonaan talaabadan laba qodob oo mudan in laga fiirsado ayaa si ah isku ekaansho yaab leh oo ka dhaxeeya dhaqdhaqaaqa golaha koonfurta Yemen iyo aqoonsiga Somaliland labaduba waxay saaxiib la yihiin Imaaraadka Carabta oo aan laftiisa lagu amaanin habdhaqankiisa guracan ee dalalka burburka ka soo kabanaya ama saboolka ah sida Soomaaliya, Yemen, Suudaan, Liibiya iyo meelo ka sii shishe arrinta labaad ayaa ah labadan xaaladoodba waxay kordhinayaan xiisadda badda cas oo noqotay mid ka mid ah meelaha ugu kacsan adduunka laakiin arrimahaas waa mowduuc kale tabinteena tan xigta ayaan ku lafaguraynaa kala furashada Yemen inta aan dib u kulmayno waa Abubakar Maxamed oo idin leh waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin ha moogaanina inaad ku xirnaataan Tafaftir Media nabad iyo warsan